kooxda Manchester United ayaa guuldaro xanuun badan kala kulantay kooxda Brighton kulan ka tirsan Premier League kana dhacay Old Trafford. Kulanka ayaa ahaa mid ay Brighton dhinac walba ugu fiicneed kooxda Manchester United ayagoo ka awood batay kooxda Erik ten Hag. Kooxda Brighton ayaa daqiiqadii 20aad dhalisay goolka koowaad ee ciyaarta waxaana u dhaliyay xidiga Danny Welbeck kaasoo hoggaanka u dhiibay kooxdiisa. Kooxda Manchester United ayaa isku dayday inay soo laabato waxayna ay sameeyeen fursado aan kala joogsi lahayn, laakiin waxaa sidaas ku dhammaatay qaybta hore ee ciyaarta oo Brighton hogaaminayso natiijo ahaan iyo qaab ciyaareed ahaanba. qaybta dambe ayay Brighton ku bilaabatay si cajiib ah ayagoo doonayay inay sii dheeraystaan hoggaanka ciyaarta. daqiiqadii 53aad ayay Brighton dhalisay goolka labaad waxaana u dhaliyay xidiga Pascal Gross kaasoo ciyaarta ka dhigay 2-0. kooxda Brighton ayaa sii waday inay garaacdo kooxda Manchester United kuwaasoo xal u waayay kooxda Brighton. daqiiqadii 71aad ayay Brighton dhalisay goolka saddexaad waxaana u dhaliyay xidiga Joy Pedro kaasoo ciyaarta ka dhigay 3-0. kooxda Manchester United ayaa daqiiqadii 73aad dhalisay gool sharafeedka waxaana u dhaliyay xidiga Hambal kaasoo ciyaarta ka dhigay 3-0. waxaa sidaas ku dhammaatay ciyaarta oo ay Brighton Old Trafford ku xasuuqday kooxda Manchester United. balse maqal qayladhaan ah ayay sameynayeen taageerayaasha kooxda Manchester United ayagoo ku dhawaaqay magaca xidigii hore ee kooxda Cristiano Ronaldo ayagoo leh Viva Ronaldo. dhanka kale kooxda Liverpool ayaa gaartay guul muhiim ah ayagoo garaacay kooxda Wolves weliba guul soo daahday. dhanka kale Manchester City ayaa guul soo laabasho leh ka gaadhay West Ham ayagoo ku badiyay 3-0. dhanka kale xidiga kooxda Liverpool Mohamed Salah ayaa jebiyey rikoor cajiib ah oo horyaalka Premier League kadib markii uu guul ku hogaamiyey kooxdiisa. Liverpool ayaa guul soo laabasho leh ka gaartay Wolves kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League. Salah ayaa caawiye ka ahaa 2 ka mid ah 3 gool oo ay ku badisay kooxda Liverpool isagoo soo bandhigay qaab ciyaareed fiican. Salah ayaa noqday xidiga ugu caawinta badan Premier League ee ka soo jeeda qaaradda Afrika isagoo wacdaro ka dhigay horyaalka.